bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan daawadayaal halkani waa Astaansan Media ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada wararkeena aan idinkuga haynana waxaa kamid ah faahfaahin ka soo baxay weerar al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidamada AMISOM iyo kuwa dawladda Soomaaliya ay ku leeyeen degmada Buulamareer ee gobolka Shabeellaha Hoose maxaa qasaaraha oo weerarkaasi ka dhashay faahfaahin ayaan idinkaga haynaa wararkeena ayaadna kula socon doontaan maxaa ka jiray in ciidamada AMISOM ay ka baxayaan qaar ka tirsan saldhigyadii ay ku lahaayeen Soomaaliya qorshahaasi muxuu ka ogahay midowga Afrika faahfaahinno ayaan idinkaga haynaa wararka Astaansan Media ayaadna kula socon doontaan waxa sidoo kale aan idin soo gudbin doonaa golaha ammaanka war ka soo saaray dhaqaalaha ammaanka iyo doorashada ka dhacaysa Soomaaliya maxaa goluhu ka yiri wada shaqaynta dawladda dhexe iyo qaar ka mid ah dawlad goboleedyada dalka xogo ku saabsan ayaad wararkeena ku daawan doontaan waxaa la helayaa faahfaahinno ku saabsan kulankii Dhuusamareeb ay ku yeesheen madaxweynaha Galmudug iyo sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya shuruud madaxweyne xaaf uu hordhigay dawladda Soomaaliya ayaan wararkeena idinkugu soo gudbin doonaa qodobadaas iyo kuwa kale ayaan wararkeena idinkugu haynaa ee u diyaar garooba daawashada wararkaasi oo faahfaahsan haddii aan ku bilaabo daawadayaal wararka laga helayo degmada Buulamareer ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay in al-shabaab weerar xoogan ay ku qaadeen saldhig ciidamada AMISOM iyo kuwa dawladda Soomaaliya ay ku leeyeen deegaankaasi dagaal xoogan ayaa ciidamada dawladda iyo AMISOM oo dhinaca iyo al-shabaab ku dhex maray deegaanka Buulamareer waxaana weerarka qaaday ciidamo ka tirsan al-shabaab sida dad goobjoogyaal ay sheegeen dadka deegaanka ayaa saxaafadda u sheegay in la maqlayo rasaas xoogan iyo qoryaha culus oo labada dhinac ay iswidaarsanayeen iyadoo cabsi ay soo food saartay shacabka degmadaasi ku sugan qasaaraha dagaalka ayaan wali la ogaanin mana jirto wax war oo ka soo baxay dhinacyada ku dagaalamay Buulamareer balse dadka deegaanka ayaa sheegaya in dhaawacyo iyo sidoo kale dhimasho ay jiraan wararka saaka laga helayo ayaa waxa ay sheegayaan in xaaladdu ay tahay mid degan hase yeeshee ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM ay dhaqaaqyo ka wadaan goobihii lagu dagaalamay ee degmada Buulamareer al-shabaab ayaa muddooyinkii dambe u muuqday kuwa kordhiyay weerarada iyo qaraxyada ay ka fulinayaan gobolka Banaadir iyo Shabeellaha Hoose waxaana ay dib u qabsadeen deegaano horey looga saaray taliska AMISOM ayaa dhawaan shaaciyay inay bedeleen qorshaha dagaalka ay kula jiraan al-shabaab waxaana ay sheegeen inay qaadi doonaan weerar ka dhan al-shabaab iyadoo wali aysan qaadin wax tallaabo ah sanadka 2021 waxaa qorshaha ammaanka Soomaaliya qayb ka ah in AMISOM ay ka baxdo dalka oo ciidamada xoogga dalka la wareegaan ammaanka guud ee Soomaaliya balse taasi su'aalo badan ayaa ka taagan dhinaca kalena waxaa soo baxay warar sheegaya in ciidamada AMISOM ay ka baxeen qaar ka tirsan saldhigyadii ay ku lahaayeen Soomaaliya midowga Afrika ayaa soo saaray war saxaafadeed uu kaga hadlayo dhaqdhaqaaqa ciidamada AMISOM ee gobolada qaar ay isaga baxeen war ka soo baxay midowga Afrika ayaa waxa lagu beeniyay in ciidamada AMISOM ay ka baxeen saldhigyadooda qaar ee gobolada dalka bixitaanka ciidamada AMISOM ee ka baxay saldhigyada qaar ayuu midowga Afrika ku sheegay mid istiraatiijiyadeed oo lagu badbaadinayo shacabka Soomaaliyeed sidoo kalena dalka looga saarayo al-shabaab dhawaan ciidamada Kenya ee ku jira AMISOM ayaa isaga baxay ugu yaraan 4 saldhig oo ay ku lahaayeen gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya warka loo qaybiyay warbaahinta ee ka soo baxay midowga Afrika waxaa lagu sheegay in AMISOM ay bilaabayso in ammaanka dalka ay ku wareejiso dawladda Soomaaliya iyadoo la qiimeynayo xaaladda Soomaaliya dhinaca kalena golaha ammaanka ayaa war ka soo saaray dhaqaalaha ammaanka iyo sidoo kale doorashada ka dhacaysa Soomaaliya golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa war ka soo saaray xaaladaha dhanka ammaanka maaliyadda doorashada 2021 iyo wada shaqaynta maamul goboleedyada iyo dawladda Soomaaliya golaha ammaanka ayaa kulan gaar ah oo ay ka yeesheen xaaladda guud ee Soomaaliya gelinkii dambe ee shalay waxaana ay ka soo saareen warbixin la xiriirta xaaladda dhanka ammaanka iyo siyaasadda Soomaaliya golaha ammaanka ayaa sheegay inay ka dalbanayaan madaxda dawladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada inay dadajiyaan sharciga doorashooyinka dhacaya sanadka 2021 kaas oo muhiim u ah qabsoomida doorasho ka dhacda dalka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa dalbaday in ka hor dhamaadka sanadka 2019 ama bartamaha sanadkan ay soo gudbiyaan sharciga doorashooyinka ee sanadka 2021 dhinaca kale golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa isku raacay muddo kordhin sanad ah oo loo sameeyay xafiiska AMISOM ee qaramada midoobay waxaana la gaarsiiyay ilaa 13 bisha Maarso ee sanadka 2020 sidoo kale golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ka dalbaday dalalka caalamka inay gacan weyn ka geystaan wax waliba oo AMISOM u suurtagelin kara ka adkaanshiyaha al-shabaab
golaha ammaanka ayaa cambaareeyey weeraradii iyo qaraxyadii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada muqdisho waxaana ay sheegeen inay garab taagan yihiin dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka. haddii aan eegnana wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ayaa shalay dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho kadib markii miradhal ay markaasi noqon waayeen wadahadallo uu u tagay Dhuusamareeb. wasiir Sabriye ayaa la soo kulmay madaxweyne Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo sidoo kale madaxa xukuumadda Sheekh Shaakir Cali Xasan. wasiirka ayaa madaxdii uu la kulmay u gudbiyay fariin uu ka waday madaxda sare ee dowladda dhexe, fariintaas oo ahayd in Galmudug doorasho gasho bisha Julaay ee 2019. ila ku dhow madaxtooyada Dhuusamareeb ayaana noo xaqiijiyay in madaxweyne Xaaf iyo Sheekh Shaakir ay ka biyadiideen soo jeedintii wasiirka. sida aan xogta ku helnay madaxweyne Xaaf ayaa hordhigay wasiir Cabdi Maxamed Sabriye laba shuruud oo ay ka mid tahay in dowladda federaalka ah ay ballan qaado inay safargelin doonin codbixinta isla markaana aysan wax lug leh ku yeelan doonin qabashadeeda. shuruudda labaad ee Xaaf ayaa ah in xukuumadda aysan u soo dirsan doorasho musharax ay doonayso inuu ku soo baxo isla markaana dadka Galmudug ay u deyso aayahooda inay iyaga go'aansadaan. wasiir Sabriye oo la sheegay inuusan marka hore wadan qorshe oo ay ku raacsan yihiin madaxda dowladda dhexe isla markaana la yaab ay ku noqdeen shuruudaha Xaaf ayaa dib ugu soo laabtay caasimadda dalka si uu la wadaago hoggaanka dalka. Villa Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay inay hore u kala qaybisay Galmudug oo haatan u kala shaqeysa Dhuusamareeb iyo Cadaado oo ay joogaan madaxweyne ku-xigeenkii iyo sidoo kale afhayeenkii baarlamaanka daacadna u ah dowladda dhexe. markana magaalada Muqdisho faahfaahin ayaa ka soo baxaya qarax xoogan oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. qarax xoogan oo ahaa gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa ka dhacay wadada Maka al-Mukarrama oo ay ku yaalaan ganacsiyo kala duwan. qaraxan oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyo walxaha qarxa ayaa lala beegsaday maqaayado ku yaala wadadaasi kuna dhagan hoteelka Weheliye ee magaalada Muqdisho oo Al-Shabaab dhowr mar ay weerar ku qaadeen. dad goobjoogyaal ah ayaa sheegay inay arkeen ku dhawaad 10 qof oo meyd ah iyaga oo sheegay inay dhaawacyadu intaasi ka badan yihiin. dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay waxay u badan yihiin dadkii ku sugnaa maqaayada la weeraray. xilliga uu qaruxu dhacayay ayaa la sheegay in maqaayada ahayd mid aad u mashquulsan isla markaana ay ku sugnaayeen dad badan maadaama ay ahayd xilligii qadada. ciidamada ammaanka ayaa goobta xiray waxaana markaasi la sameeyay gurmad dadka waxyeeladu ay soo gaartay halkaasi looga qaadayay. isla magaalada Muqdisho wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Cabdi Maxamed Sabriye ayaa maanta magaalada Muqdisho ka furay kulan looga hadlayay dhismaha dowladaha hoose iyo golaha deegaanka. kulanka oo uu shir gudoomiyay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxa goobjoog ka ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha, xubno ka socday dowlad goboleedyada dalka, xafiiska ra'iisul wasaaraha, xafiiska siyaasadda ee AMISOM iyo deeq-bixiyaasha Soomaaliya ka taageera dhismaha golaha deegaanka iyo dowladaha hoose. waxaa diiradda lagu saaray kulankaasi sidii loo dardargelin lahaa dhismaha golaha deegaanka ee degmooyinkii hore la isku afgartay in dhismahooda la hormariyo. kulanka ayaa qayb ka ah kulamo mas'uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya ay la qaadanayeen hay'adaha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada si loo dardargeliyo howlaha muhiimka ah ee horyaalla wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya. guud ahaan daawadayaal saaxiibayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya oo aad kala socoteen Asaansan Media. warkan kiisa xiga inta aan ku kulmi doono dhamaanteen waxaanu idinkaga tageynaa sidaas nabadgelyo. fadlan ha hilmaamin inaan subscribe dhahdo channelkan si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya.